ماسكيغان وماسك عجيب waxa ku jiro wax la dhaho lutein kaasoo u fiican hurka cunka waxa kale oo ku jiro potassium vitamin B6 waxa ku jiro vitamin A kaasoo u fiican oo ka hortago duqnimada kaas oo ka hortago madmadowga indhaha hoostooda midkaas oo ka hortago nabraha dadka ka soo baxo midkaas oo ka hortago nabraha yani waxa ay ku reebeen hadii aad tahay qof wajigiisa la dhiban sensitive ama duqnimo ama maxoo ahayntood hurka cunka waxyaalaha maxoo ahayntood wajiga dhibo dhan nabraha kulli waxa ka helaysa fitamiino fara badan vitamin B6 ayaa ka helaysa potassium ayaa ka helaysa vitamin A ayaa ka helaysa lutein ayaa ka helaysa kaasoo u fiican hurka iyo cunka fadlan hadii aad markuu horeyso soo booqato channelka kan ku xin subscribe waa maskigaas oo mid cajiib ah kaasoo secretka amarsada ah adinka ayaan dhagta idin ku sheegay reer karin iyo qurxin ku soo dhawaaw channelka karin iyo qurxin بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وراه قالق وقت سلام لو بقى جوجتان دمان انتو كحرين جانلka karin i qurxin waxa idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan iyo niyad saf maanta waxa idin la wadaagaya maskigaas oo maskiyaasha aan u jeclahay oo ugu cajiibsan hadana qof walbana uu awoodo kaasoo wax qarash aan ka rabin gurigaadana ku dhaxyaa laakiin ma ogid maanta ayaa lagu sheegayaa maskiga aan isticmaalayna maanta waxa waaye waa moos iyo caano markii aad isku darsatid waa maski cajiib ah kaas oo ka saacideynaya ayu problem oo jirkaada leeyahay mooskaas macal waxa ku shiidanayna qobkiisa qayb kamid ah qobkiisa mooska waxa ku jiro vitamin A ayaa mooska qaybtiisa dhexe ee cuntada aan ku cunno waxa ku jiro vitamin A waxa ku jiro potassium waxa ku jiro vitamin B6 kuwaasoo jirka u fiican kaasoo faceka ka ilaalinayo duqnimada nabraha hurka haduu wajiga ku huro ka faa'iideysa insha Allah nabraha soo noqnoqdo cunka dadka mar walba sensitive ka ah ayaa aad iyo aad ugu sii wanaagsan yahay hadii aad maxoo ahayntood iscadaysid ee maxoo ahayntood wajigaada fitamiinada ee ka dhamaadeen haddaba isticmaal wuu ku wanaagsan yahay marka maxoo ahayntood maqaarka ee mooskan wax ku jiro wax la dhaho lutein wuxuu u fiican yahay hurka iyo cunka ayuu dadka ka saacideeyaa wajiga huro iyo cunka wuxuu kale oo siiyaa lighting qurux badan qofka inuu si dabiici oo u dhalaalo insha Allah secretkaas aniga idin sheegay oo wuxuu kale oo ka saacideeyaa dadka indhaha hoostooda ka madow qaybta hore ee aan jarjarnay ee maxoo ahayntood maqaarka mooska ahaa waxaan ku shiidanaynaa mooska qaybtana waxaan ku sameynaynaa indhaha hoostooda ayaan ku dhijinaynaa nuskaas kaleetana waan iska dhiganayna insha Allah waa nus yani hal moos halfkiisa ayaa waxa ka helaysa intaas oo vitamin waxa ku jiro potassium vitamin B6 waxa ku jiro vitamin A waxa ku jiro lutein wax la dhahayo kaasoo hurka duqnimada iyo cunka ka hortago caanahana waa iska taqaaneen ayagana waxa ka buuxa vitamin D ay aad u haystaan kuwaasoo qofka bini'aadmiga jirkiisa u fiican aniga caanaha aan haysto waxa waaye waa caano boorihii ee budada ahaa kadibna biyo ayaan ku qasay wax yar oo biyo ah markii aan ku qasay kadibna waa ka sidaas iyo igu soo baxay qiyaas ahaan waa 3 macalka 4 macalka caano ah kadibna waxaan isku darayaa caanihii iyo mooski waa mooski qaybtiisa la cunayay iyo qaybtii aheeday maqaarka iskeenka oo mooska yani hadhayalsaninaha yani hal maalin oo kaliya tijaabi waa secretka aniga aan marsado mar walba waana maskiga aan ugu jeclahay marka waxaan rabaa inaan isku shiido intaan mashiinka ayaan soo qabanaya waan ku ridayaa kadibna waan isku shiidayaa markii aan isku shiido kadib ayaa arki doontaan insha Allah mashiinkii ayaan ku soo riday hadda kadibna waxaan suubinayaa waan shiidayaa oo waxaan rabaa inaan ka dhigo maski yar oo fudud oo naciim ah oo wajiga qurux iga dhigayo haddana waan soo shiidayaa markii aan soo shiido mashiinka waxaan rabaa si fiican inaan u daqiijiyo alaabtan hadii aad wajigaada marisid waxa noqonaysa qof dabiici oo mar walba dhalaalaya mar walba iga qoraa idin dhahay insha Allah waan ogaa doontiin gabdhihii soo qoray ee idahay maxuu ahayntood wajiga duqnimada maxaan ku daweynaa waatana insha Allah alaabtiini ee isticmaala markii aan soo shiiday kadibna waa kana sidan ayuu egyahay waa mask cajiib hadii aad ka cabanaysid duqnimo degdeg ah amaba aad tahay xitaa waqtigeeda aad joogtid waxa noqonaysa qof qurux badan dib ayaa u soo noqonaysa insha Allah isbuuci 2 mar ama maalin walba intii aartid isticmaal qaybtaas kamid ah ee maxaa waay maqaarka mooska ahne waxarna indhaha hoostooda madmadowga inaa u isticmaalno oo indhaha hoostooda aan ku dhajino markii aad
ماسكينga isku iskaraab gareysid isla markii ayaa waxa ka dareemaysaa aan ku dhahay natiijo isla maalinkaas lagu ma dhahayo 2 biri 3 biri waa isla maalinkaas wuxuu mاسكينgan aad iyo aad ugu fiican yahay wajigaada haduu huraayo isticmaal hadii aad sensitive tahay oo wax walba ay ku dhibaan isticmaal adiga ayaa natiijo ka geeni doono sidaas ayaa isku iskaraab gareynaysaa marka wajigaada isku iskaraab gareyso 30 daqiiqo ayaad u sugaysaa after 30 daqiiqo waa iska dhaqaysaa marka sida isku iskaraab gareysa qaybtii kale labadii qayb ee mooska aan kala jeexay ayaa hadana sidii mooska u marinaysaa sida hada sawirka inta idin kaga muuqato indhaha hoostooda ayaad sidaas ugu dhajinaysaa ayagana sidoo kale waxa isku wada sugaysaa 30 daqiiqo kadib biyo qabow oo caadi ayaa isaga dhaqaysaa iskana dhaafa saabuunada face washada waxaas wajiga ayaa dheexa ka qaadan wax wanaagsan maaha mar walba biyo wajigaada ku dhaq hana isticmaal biyaha kul isticmaal waxa qabow iskiinka waxa wanaagsan mar walba qofka oo wax qabow oo ku dhaq mar walba biyo qabow oo kaleento marka alaabtan sidaas indhahaada u hoosaara madmadowga indhaho dhan ayuu ka qaadayaa isbuuc gudihiisa ayaa ku dareemaysaa hadii oo wajigaada uu ahaa sensitive waa arkaysaa hadii uu ku huraayay ka faa'iideyso hadii aad leedahay haar ee nabar kugu reebtay nabraha waxyaalahaas oo dhan maaskigan waa maaski cajiib ah waa maaski qaali ah adduunka oo dhan waa maaskiyada ugu qaalisan waay waxaana waa qof walbane ma soo bandhigo qof walba wuxuu rabaa sirtiisa inay si qaas u ahaato laakiin aniga waa idin sheegaya insha Allah waxa aan mar walba wajigayga mariyo waxa kamid ah waa maaskigan wuxuu iga saacideynaa inaysan nabraha iga soo bixin hadda iga baxaan inay hore iga baaba'aan waxa kale oo maaskan ka saacideyn nabraha madmadow ee roqorta camal ah ee nabarka aan ahayn laakiin madow inuu gooyo oo yacni qofka uu ka jaro hadii uu madmadow wajiga ku lahaayo kale inuu ka baabiyo madmadowga nabraha ee reebeen madmadowyada dhibicda oo kale dadka cad badana u badan ama dadka cadaanka carabta Soomaalida cadcad oo kale way qabaan waxyaalahaas madmadowga uu ka qaadaya marka waxa idin insha Allah haarta wajiga ku taalo uu ka qaadaya alaabtan waxay leedahay fitamiino fara badan kaasoo ah potassium iyo vitamin B6 iyo wax la dhaho vitamin A saddexdaas waxa ku jira mooska qaybtiis cuntada ku cuno ayay ku jiraan waxa kale qoob mooska maqaarkiisa ku jira lootiin wax la dhahayo kaasoo hurka iyo cuncunka iyo wajiga sensitive ah u wanaagsan marka waxa idin leeyahay insha Allah wax dabiici isticmaal sida u noqotid qof dabiici mar walba wax dabiici hadii aad isticmaashid waxa noqonaysa waa qof dabiici kamana shanlaynaysid insha Allah hadii aad duqnimo ka xabanaysid waji hur nabro indhaha hoostooda ka madmadow wajigaada sensitive yahay adiga ayaa lagu talagalay alaabtan ee isticmaal insha Allah waana ka faa'iido doontaan waxa idinka tagay islaamka taasoo assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواو جنالك كارين